garcia oo ah korneelka hadda meesha nala taagan iyo taliyaha guud ee mustaqbalyaani iyo ciidamada amisom gaar ahaan qaybta Itoobiya shacabka meesha isugu yimid dhammaantiin loo ku hadlayo magaca madaxweynaha maamulka koonfurbeed magaca golaha wasiirada waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo kaalmadan yar laakiin magaceeda meel dheer u saari doono oo ah iskaashiga ka dhexeeyo dadka tabaalaysan inay ku gargaaraan marna cadowga ka celiyaan marna sidii karaamihii ayaga ay lahaayeen ay soo jiraan guuriyey uga mahadcelinaynaa magaca madaxweynaha uga mahadcelinayaa mudane shariif xasan sheekh aadan waxaana leeyahay isaga maanta xafladani hagaagkeeda iyo muxuu ahaa xiriirkeeda iyo soo qabanqaabiyeyna intii gudoomiyaha degmada isagana maad gaar ah isaga iyo tiinkiisa ay halkan uga jeedinayaan taasoo micnaheedu ay tahay in uu muujiyey dagaal haddii noqoteen xagga safka hore micnaha inuu ka mid noqdo waa uga mahadcelinayaa waxaa kale oo mahad gaar ah diile marka laga baxo raashinkaada aan nasiib u sii yeeshtay aniga wasiir ahaan wasiirka beeraha noo ammaantay in 1,000 yaambo oo lagu falanaayo beeraleyda deegaankan baydhabo ku wareegsan 1,000 yaambo inay helaan maanta gacantooda ay soo gasho oo ay ugu deeqeen ciidamada amisom iyadana mahad gaar ah ayaan uga jeedinayaa yaambooyinka ujeedaan waxaan rajeynayaa insha allahu gudoomiyaha degmada maamulka degmada iyo guddoomiyaha beeraha gobolka ayaa ka wada shaqeyn doono meelaha dadka u baahan sida raashinkan loo soo gaarsiiyey inay u gaarsiiyaan ayaan rajeynaynaa waa idinka guddoomay ka amisom ahaan iyo ka dowladda Itoobiya ahaan ayaan magaciina u mahadcelinaynaa magaca shacabka ku nool koonfur galbeed oo dhinta kaalmadan aad micnaha soo gaarsiiseen dadkan tabaalaysan ee walaaleena ah waxaan codsan lahaa dadka wax la siinayo inaysan ku ekaanin inay kaalmo sugaan ay u jeestaan xagga wax soo saarka dhulka maadaama uu yahay dhul qodob ah waa mahadsantihiin mar labaad iyo saddexaadba aad